dhegaystayaal, qofku hadduu marinkiisa seego wixii u danahaa hadduu ka ilduufo hadhowna wax ka bacsamaanoo wax aanu filaynin ay la soo gudboonaadaan isaga ayaa naftiisa ku canaanta. wuxuu isku haraamaa caku aniga bal maan sidaas yeelo. markuu hebel ila talinayay bal maan hawraarsan idhaahdo saa waxa maanta igu dhacay iguma dhaceen. markaas baa loogu maahmaahaa anqow isku dhufte isagaa u dhutiya. haddiise koox iyo ka badan wax ka dhexeeyaan dabadeedna sidii waxaas loo maamulay uu qallooc galo amaba ay dhibaata ka timaado qofba qofka kale ayuu ku eedeeyaa. adaa noolahaa iyo adaa noolahaa ayaa la is yidhaahdaa. waa dabeecad aadanuhu ka siman yahay, bulsho ka nabad gashayna lama sheegin. waxyaabaha haddaba la wada leeyahay waxaa ugu weyn dowladda, gaar ahaan midda casriga ah. waxay ku dhisantahay heshiis dhex mara taliyayaasha iyo loo taliyayaasha. waxay ku bulaashaa xeerarkii la dhigtay oo lagu wada dhaqmo. haddii aanay xoog iyo afgembi talada dalka ku taabin, badanaa madaxdu doorasho ayay ku timaadaa. maamulkana waxaa looga dambeeyaa muddo qeexan oo xeerarka u qoran ugu xusan. muddadaasi markay dhammaato ayaa hadday mutaystaan oo la mahadiyo uu halkoodii dadweynuhu ku soo celiyaa. haddii kale inta laga codeeyo ayaa kursiga laga wareejiyaa, loona dhiibtaa cid kale oo markaas loo filaayo in qoladii hore ay dhaami doonto. waxaan uga gol leeyahay 1960kii markii ay gobta noqotay, fikraddaasi guud ahaan soomaalida waa ku cusbay. muddo xileed inay sugtaana wuu ku adkaa. taas markhaatigeedana waxaa laga heli karaa suugaanta maansada u badan ee sanadkaas 3dii xigtay ay hal abuuradii xilligu tiriyeen. haddaad xusuusataanna dhowrgu muddo haatan laga joogo waxaan halkan idinka maqashiiyey gabay hiif iyo haaraan miiran ah oo aadan carab u tiriyey madaxda xukuumaddii koowaad ee maamulkii dalka gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga kala wareegtay. waa gabaygii ay ku jirtay sidii baan markaafiyo u sitaa ama maraykaane, sidii baan maqaar ugu gamcaa meel la ii dhigay, sidii baan makaar lagu gubtay iyo milic u joogaay, sidii baan madaad dhali karsho iyo rodol u miistaaye, sidii baan macaash uga gataa harag maciinkiisa, sidii baan martida caano qura ugu macsuumaay. waxaa haddaba isaguna jiray gabay kale oo kaas aadan carab aan laga aqoon, wax sanad ka yarna ka dambeeyey. waxaa tiriyey gabyaal la oran jiray axmed ismaaciil diiriye oo qaasim ku magac dheeraa, kana mid ahaa maanseyahanadii haddiiba ku kacay xukuumaddii rayadka ahayd ee haba lagu murmee isdoorashada ku timid. allaha u naxariistay qaasim gabyaabuu ahaa. gabyaaguna waa riyooda, waana loo ogol yahay. wax walba oo aan dadka kale suuragal la ahayn ayaa isaga suuragal la ah. sidaas daraaddeed wuxuu gabaygiisa ku bilaabayaa dabayaaqadii 1950nadii duulaankii hawada sare lagu qaaday ee ruushanka iyo maraykanku ay hormuudka ka ahaayeen, kaasoo madaxa uu rabi lahaa in xukuumaddii soomaaliyeed ee xilligaasu ay ka qayb qaadato. wuxuu ka tiiraanyoonayaa iyada oo dhulkiiba laga tegey oo hanashada hawada iyo xidkaha sare loo tartamayo, in xukuumaddii jirtay aysan arrintaasba war iyo wacaal u haynin. wuxuu yidhi, dayaxaa la kala boobayaa dirirkii cawleede, xidigtii dagaariya la dhaaf diilintii gureeye, dib baa laxaha loo eegayaa sacana waa daafe, dabagaabihii laga carceer, dunina yeelkeeda duqisamada lagu sheegayey, iyo dida cirjiidhiiye, dirirrada rag baa kala yaqaan, dowga loo maro hadba waqalka dihin, ruushna waa u doogsin cararaaye, nin da'diisu meeshaa tagtay oo daalan baan ahaye daab godimo weli sooma jarin wiilashaan direeyay. gabi ahaan siyaasiyiintii soomaaliyeed oo ra-iisul wasaarihii xilligu ugu horeeyo ayuu ku cambaaraynayaa gaabis iyo inaanay waxba u qaban dadweynihii jilicsanaa ee la rabay haddii gobinimo la helay in noloshooda ay kor u soo qaadaan. taasna wuxuu markhaati uga dhiganayaa in soomaali ay weli geedaha hoos fadhido oo ay ku shaxayso
ama ay ku xaajoonayso, inay weli arad la silcsan tahay, iyaga iyo waxaddii xolaad ee ay dhaqayeen inay dugaagga dibadyaal u yihiin, in weli aqaladii daroorta badnaa ay ku hoydaan, haweenku ay carruurtii dhabarka ku sidaan, oo weli ballidii biyaha yarayd ee doolood la isku haysto laguna dirirayo. halkaas markuu marayo ayaa waxaa ku soo dhacday geelal Soomaaliyeed oo mar aan fogeyn Etoobiyadii Hayle Salaase intay ku soo duushay ay dhacday, dowladda Soomaaliyeedna haba yaraatee aan dubku u dhaqaaqin, iska daa inay ka soo dhiciseen. wuxuu yidhi, ma daadihin Rashiid maatidan daad guree iliye, shicibkii daryeel weli ma helin, daacadda ahaayee sidii buu u doonyaysan yahay dabashii weynayde, sidii bay duleedada dharli'i ugu dabjeexaane, sidii baa duddada aar dhiciyo dacaw u joogaaye, sidii buu dugaag uga gurtaa duugga xoolaha, sidii bay ducaha aqaladii uga duleelaane, sidii bay daroorimaha iyo daad u galayaane, sidii bay dushii ugu sidaan dumar carruurtiiye, sidii bay u dabagoosi tahay haladii dooloode, oy weliba dibindaabyo iyo diriri joogtaaye, waa kaa dareersaday daycadkii dhaleeb. siyaasiyiintii Soomaalida hadduu canaantaas uga haro waxba ma ahaateenoo gacal cun baa loo qaadan lahaaye, meelo fogfog ayuu la tegey. wuxuuba ka xayuubiyey jinsiyaddii Soomaalinimo, isaga oo ku sheegaya inay la isir yihiin Karal oo ka mid ahaa saraakiisha gumaysigii Ingiriiska ee waqooyiga jeel ka talin jirtay. wuxuu ku adkaysanayaa waxa u muuqdaa inaysan ahayn dowladdii uu ku taamayey, ragga hoggaanka u hayaana midabka ha joogtee aanay inaba Soomaali cad ku lahayn. wuxuu yidhi, dembi ku hadli maayee ma arag dowladdan rabayey halkii aan dal ii soo kordha iyo darar ka eegayey, iyoba waa darxumo iyo maqane dacar miyaan leefay, madaraato raadkaan dhigaan dib ugu soo laamay, sidii yoon dayaysnahay miyaan dawgii ka habaabay. 2-3 sano waxaas oo idin laguma qaban karee, qaasin ma degdege, mase canaanta iyo cambaaraynta madaxda gar buu u lahaa? jawaabtu waa adinka. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga, waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo. aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.